السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا أي بيشون تهاي سيدة تمن لبعتن ورك الدبلوماسية كأن الدنيا عالمية وحكمية وما حي قضبة دا يكون هشيان سومالي لان دور الرماد أطرام لقصو حكتي والدنيا كيابي كيم تشون آن ولا شيس كيم يو تشان هوين إذا وقع أود بدن كوريا دا وقوي halkaad warka kala socotaan waa bilkhayr TV inta aynu ognahay buugaag badan ayaa ilaa iyo hadda laga qorayaa madaxtinimada madaxweyne Trump laakiin buugii ugu dambeeyay uu qoray la taliyihiisii hore ee ammaanka John Bolton ayaa soo jiitay indhaha dad badan marka loo eego eedeymaha uu qoray buugaasi cusub iyo xilka uu hayay Trump. Bolton ayaa warbaahinta la wadaagay qayb kamid ah buugga dhawaan uu daabici doono oo ka hadlaya muddadii uu la shaqeynayay Trump iyo wixii uu jooga ahaa. Madaxweynaha Trump ayaa isku dayay inuu hor istaago daabacada buugani oo magaciisa lagu sheegay qolka ay waxan oo dhani ka dhaceen. Haddaba waxaan halkan idinkula wadaagaynaa eedamaha la yaab kale ee uu buugani daaha ka rogay ama uu soo bandhigay. Mahub nuclear ayay haysataa ama ay leedahay waa su'aasha isweydiin jale. Haddaba Britain waxay ahayd dalkii saddexaad ee tijaabiyay hubka nuclear-ka sanadkii 1952 waxa ka horeeyay Mareykanka iyo Ruushka oo kaliya, balse Trump arrin ugu bah ayay u ahayd in Britain ay ku jirto dalalka farakutiriska ee hubka nuclear-ka haysta. Arrinta kale adduunka ka yaabisay waxa kamid ah in hubka nuclear-ka UK ayaa lagu soo hadal qaaday mar uu Trump kulan la lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee UK waa dalka Ingiriiska Theresa May sanadkii 2018 mid kamid ah la taliyayaasha Theresa May ayaa arrintan soo hadal qaaday sida lagu qoray buugga Trump ayaa dabeedna yiri waxaan idin weydiinaynaa ma awoodda nuclear-ka ayaa leedihiin. Mr. Bolton waxa uu sheegay isagoo hadalkiisa si wata inaysan kaftan ahayn madaxweynaha hadalka uu yiri oo aanay ahayn wax la iska yiraahdo. Sidoo kale Bolton ayaa soo qaatay tusaale kale oo muujinaya in aqoonta guud ee Trump ay aad u liidato ama ay hooseyso. Mr. Trump ayaa la sheegay in uu mar weydiiyay madaxii hore ee madaxtooyada aqalka cad John Kelly in Finland ay qayb ka tahay ama ay ka mid tahay dalka Ruushka iyo in kale sida lagu qoray buugga Bolton uu soo bandhigi doono. Hadalkan ayaa uu weydiiyay ka hor intii madaxweynaha Ruushka aanu la kulmin isagana caasimadda uu kala kulmay ee wadankaasi Finland ee Helsinki. Venezuela in lagu duulo way habboon tahay. Mr. Trump ayaa lagu soo warinayaa in mar la qumaneyd in Mareykanku uu ku diilo dalkaasi Venezuela ee ku yaala Latin America sida lagu qoray buugga Trump ayaa mar uu haystay in uu dalkaasi ku yaala koonfurta America ee uu ka tirsan yahay Mareykanku nacaskii bus ahaa. Inkastoo Trump ay caadi la ahayd in lagu duulo Venezuela, haddana caro ayuu uu ka muujiyay duulaanka Afghanistan oo waxa la soo wariyay in uu yiri sida lagu qoray buugga dagaalkaasi waxa geystay nacas lagu magacaabo George Bush. Trump Shiinaha ayuu uu ka dalbaday inay ka caawiyaan ololihiisa doorashada sida laga soo xigtay buugga Bolton oo qayb kamid ah lagu daabacay wargeyska The Wall Street Journal. Trump ayaa ka dalbaday Shiinaha inay isticmaasho awoodeeda dhaqaale si ay uga caawiso Trump in dib loogu soo doorto waa doorashada madaxtinimada ee nagu soo foolkale ee November dhici doonta. Trump ayaa ku amaanay xiin cadaadiska uu ku hayo muslimiinta Shiinaha. Bolton waxa uu buugiisa uu ku sheegay in Trump uu u muuqday in raalli uu ka yahay markii uu xiin difaacay go'aanka Shiinaha muslimiinta uu kaga soo horjeeday ciqaabaha lala beegsanaya dadka muslimiinta ee ku nool wadanka Shiinaha. Trump wuxuu ku yiri xiin waa arrin wanaagsan inaad xiriyo u dhisto oo aad ku hayso muslimiintaasi sida lagu sheegay buugga uu qoray Mr. Bolton. Dawladda Shiinaha ayaa la sheegay inay xeryahaasi ay maxaabiis ahaan ugu hayso
ilaa iyo 1 milyan oo muslimiina Shiinaha oo wadankaasi u dhashay. wali waxaynu ku jirnaa wararka xagga iyo Mareykanka iyo inooga imanaya wax yar ayuu u jirshaday in uu Mareykanka ka saaro madaxweyne Trump ciidamada uu ka mid ka yahay ee NATO. Bolton waxa uu buugiisa ku sheegay in 2018 uu Trump go'aansaday inuu dalkiisa ka saaro gaashaanbuurta NATO uu xubin ka yahay isagoo ka caraysan inaysan lacag badan ay bixin dawladaha xubnaha ka ah ciidamadaasi NATO. Mas'uuliyiintaasi ayaa arinta uga digay waana wax aynu ka xunahay ayuu yiri, mana difaacayno kuwa aan lacagaha laga sugayay aan wali bixin ayuu yiri madaxweyne Trump sida buuga lagu qoray. Trump waxa uu rabaa mudaxileed ka badan mudaxileedkiisa. Mr. Bolton ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu hogaamiyaha Shiinaha u sheegay in dadweynaha Mareykanka ay aad u daneynayaan inay isbedel lagu sameeyo dastuurka si Trump uu madaxweynaha u sii ahaado in ka badan mudaxileedka labada jeer. waa ana arin aad u cajiib ah oo la yaabana dhanka iyo bariga Afrika iyo Soomaaliya. waxa xalay caasimadda Djibouti si afgarada hordhac u kala saxeexday gudiyada farsamo ee wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland. dhinacyada ayaa maalmahan isku mari la qodobo xasaasi ah taasoo keentay in heshiiskii rasmiga ah uu ka soo bixi waayo wada hadaladaasi dalkaasi Djibouti lagu lahaa. waxa aana lagu heshiiyay 5 qodob oo ay ka mid yihiin 5 qodob. 5 qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala saxanay. qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo hadafku uu ka yahay wada hadal mira keenaya. qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaa ahayd. qodobka saddexaad dhowr arrimood oo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen. waxa kamida maalgelinta dhaqaale, gargaarada insaaniga, sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliya sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaha u gaarsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda. guddi baan u saarnay. guddi labaadoo samada air traffic maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay. guddi saddexaad oo ka shaqayn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay. saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Djibouti. guddigan wasiirada aan ku jirno 45 cisho kadib ayuu haddana Djibouti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen. dhanka iyo Asia marka aynu eegno sanadihii ugu dambeeyay, Kim Yo Jong ayaa soo ifaxday oo noqotay shakhsi muhiim ah udub dhaxaadna u ah awoodda Pyongyang. waa da'da ka yar ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, isla markaana waa qofka kaliya ee ka mid ah walaalihiisa ay sida aadka isugu dhow yihiin. haddaba Kim Yo Jong ayaa markii u horeysay dareenka caalamka soo jiidatay 2018 markaasi oo ay ka mid ahayd wafdi Kim ee booqanayay Kuuriyada Koonfureed. waxay qayb ka ahayd ergadii ciyaarihii Olombikada xilligaasi oo kooxihii ka socday koonfurta iyo waqooyiga ee hal koox ay isku noqdeen. waxa 2018 la shaqeynaysay oo ay barbar taagneed walaalkeed xilli uu qaaday wada diblomaasiyadeed isagoo la kulmay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo kulankii muhiimka ah ee uu la qaatay Donald Trump. xiriirka dhow ee ay la leedahay walaalkeed Kim iyo doorka heerka saraha ee ay ka ciyaarayso siyaasadda ayaa mar kale soo ifaxday Abriil 2020 markaasi oo walaalkeed Kim Jong Un uu ka maqnaa fagaaraha dadweynaha. intaa kadib Kim Yo Jong waxa ay ka mid ahayd dadka ugu sarreeya ee la saadaalinayay inay bedeli doonto Kim Jong Un. doorka gabadhan Kim
ayaa sare u kacay ilaa bishii Oktoobar 2017 markaasi oo loo dalacsiiyay inay ka mid noqoto guddiga dejinta siyaasadda xisbiga shuuciga ee dalkaasi leeyahay. Ka hor waxay ahayd agaasime ku-xigeenka waaxda propagandada ee dalkaasi. Jagadaasi oo la rumaysan yahay in ilaa iyo iminka ay hayso isla markaana ay ka shaqaynayso oo aanay sare u qaadayso sumcadda dadweynaha uu ku dhex leeyahay walaalkeed Kim. Miss Kim ayaa sidoo kale ka mid ah shakhsiyaadka ku jira liiska cunaqabataynta Mareykanka, waxaana lagu eedeeyay tacadiyo dhanka xuquuqda aadanaha oo ka dhacay Kuuriyada Waqooyi. Waxa arrintan micnaheedu tahay in muwaadiniinta Mareykanka wax xiriir aanay la samayn karin hanti kasta oo taala dalka Mareykanka ayaa sidoo kale la xanibayaa. Haddaba waa sidee awoodda ay gabadhani ku dhex leedahay dalkaasi. Runtii way adag tahay in la fahmo nidaamka awoodda Kuuriyada Waqooyi, sidaas daraaddeed way adag tahay in la cabiro inta ay dhan tahay galaangalka dhanka siyaasadeed ee ay leedahay Kim Yo Jong. Waxaa ka jira warar la sheegaya isla dhex maraya oo iyaguna sheegaya inay isguursadeen wiil uu dhalay Cho Ron Hao oo ah xoghayaha ugu awoodda badan ee xisbiga, isla markaasna ninka labaad ee ku xiga Kim Jong Un. Haddii ay dhab tahay arrintaasi, waxay markaasi taasi siinaysaa meeqa muhiim ah oo aad u sareeya. Balse Oliver Hotam oo ka tirsan NK News ayaa warbaahinta dunida u sheegay, waxa aanu malaynaynaa inay caadi tahay in la yiraahdo maadaama oo 30 jir ay tahay, taas oo ah da aan saameyn badan ku lahayn Kuuriyada Waqooyi, in galaangalka ay leedahay inta badan uu yahay mid ku tiirsan walaalkeed. Haddii ay noqoto in la helo qof bedela Kim Jong Un, xiriirka qoyska ayaa noqonaya mid muhiima. Kim Jong Un ayaa la rumaysan yahay in uu caruur leeyahay, balse waa kuwa weli aad u yaryar. Maadaama ay Miss Kim ay xubin ka tahay dadka leh dhaxalka, warbaahinta dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa si sahlan qeyl uga heli karin in awoodda lagu wareejiyo. Balse dhaxaltooyadaasi marka la eego, haddii aan iyada la soo xulin, hogaamiye kasta oo kale oo la soo xulo waa uu arki karaa qof la loolamaya ilaa uu yimaado awoodda xubin kale oo ka tirsan Kim. Markaasi xaaladdu way sahlanaanaysaa, ayuu yiri Fodor Terkio oo ka tirsan jaamacadda Kookmin ee ku taala Seoul. Inay la wareegto jagada hogaamiyaha sare, haddii kale waxay luminaysaa dhammaan awoodaha iyo suurtagalnimada xitaa inay nafteeda ku weydo. Laakiin jagade ayay ku habboontahay inay ka qabato qoyska xukunka haya. Kim Yo Jong waa gabadha ugu yar caruurta hogaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi. Waxay isku hooyo yihiin Kim Jong Un iyo Kim Jong Chol, oo isagu la rumaysan yahay in uusan xil sare ka haynin nidaamka awoodda siyaasadda ee dalkaasi. Waxay dhalatay 1987, waxayna 4 sano ka yar tahay walaalkeed Kim Jong Un oo imika xilka haya. Waxay wax ku wada barteen ama ay tageen isla markaana ku soo noolaayeen magaalada Bern ee dalkaasi Switzerland. Saraakiisha iskuulka ayaa waxa ay ka baran jirtay ee dalkaasi Switzerland ayaa waxay sheegeen inay ahayd gabadh si weyn loo ilaaliyo, isla markaana waxa mar la sheegay inay qabow yar oo ay dareentay markiiba intii iskuulkii laga saaray isbitaal la geeyay. Maxay tahay imika shaqadeeda? Tan iyo 2014 shaqadii Kim Yo Jong waxay ahayd in difaacdo sumcadda walaalkeed, isla markaasna waxay door mug leh ka qaadanaysay waaxda propagandada ee dalkaasi iyo sida in laga ilaaliyo ninkaasi wax allaaliya wixii sumcad darro u keenaya. Waxaa la sheegay in iyada ay maarayso dhammaan howlaha uu ugu soo baxo fagaarayaasha, isla markaana waa la taliyaha dhanka siyaasadda ee ugu dhow madaxweynaha.
doorkeeda ku aadan suurtagalnimada inay tahay qofka bedelaya walaalkeed ayaa soo baxday mar walba oo laga dayriyo xaaladda caafimaad ee walaalkeed Kim Jong Un. Waxa dhowaan soo baxayay warar la isla dhex marayay oo sheegaya in uu xanuunsanayo Mr. Kim, balse waxa markii dambe soo baxay sawiradiisa isaga oo xariga ka jaraya warshad, taasi oo meesha ka saartay shakigii laga qabay caafimaadkiisa. Wadayaal iyo dhageystayaal, inta aan ku dhaafno warka maanta waxaan idin leenahay kulan wacan saaxiibayaal, ku soo dhawaada tabinta tooska oo aan idinka soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ee aad mar kasta kala socotaan Bil Khayr TV.